الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأصحابي الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير إن شاء الله تعالى ما أنت كلمة كوبان أيانو إسكح سندنا إيمانك الإيمان ووحين كدونا هيدتك أن إلهي رميسنين إيوه رسوشيسا أما إلهي هيدتك وحويان كفارتا الإيمان قفك إيمانك كسيفو ومقعيسا وحلا مؤمن بالغا هذا با ومحي إيمانكو والشيغا قفك وحويان أن كو قاضية إنو أهرمع العلوس وتحملو دبردايقو xilliga qaboobaha ee dhaxanta ee waxa weeyaan biyuhu aad ku qabow yihiin waa shayga qofka waxa weeyaan oo ku dafcinaya ma ku riixaya inuu masaajidka Ilaahay iska xaadiriyo oo salaada subax soo tukado soomka marka waxa weeyaan xilli maalintu badanta la joogo ama kulay la joogo ama shaqo qofku hayo waa shayga qofka u diraya inuu waxa weeyaan uu soomo وحويان انتاس سو ساعود دور iyo 10 saacadood mararka meelaha qaarkood 20 saacadood wax ku dhaway dadku sooman maxaa kalifayeen soomo gaalku iska cunay oo iska dhargaya qofkii muslimka ah uu soomay mal farq baynahuma maxaa u dhaxeeya al iimaan wa iimaanka weeya hadaba iimaanku muxuu inooga baahan yahay ilaalin buu inooga baahan yahay iimaanku sida aqeedatu ahli sunna wal jamaa ay tahay al iimaan yaziidu wa yanqus iimaanku waana kordhaa waana nuqsaama معناه waxa weeyaan iimaanku waana xoogoba waana itaal darada waa daciifa xadiiskii nabigana waxay ku jirtay inuu nabigu sallallahu alayhi wa sallam man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iiman yani waxa weeyaan qofku haduu xumaan arko xumaanta uu arkay ha ku suuliyo gacantiisa culimadu waxay yiraahdeen waa dadka dawladda ah ee mas'uuliyadda ummadda haya ayaa gacanta kaga qaban kara wax fa in lam yastati' diyaanu dawlad ahayn oo xukuumadii iyo dadkii sultada iyo yani maamulka ahaan hayna fa bil lisani waa dadka culimada ah ee garanaya xumaantii ee dadka jaahiliinta ah jahligu ma aha oo jahliga aan qofku waxba garanay qofka xataa garanaya waxa shayga garanaya ee laakiin hadana xumaantii aan ka joogsanin jahli baa isaga lagu tilmaamaa dadka culimada ah waa inay ka gacanta waa inay waxa weeyaan ka qabtaan oo carabka uga sheegaan oo yiraahdaan ilaahay ka cabsada waxaas uquuba ay keeni kartaa ilaahay inuu ku carado ku cadaabo ayaa ka iman kartaa xadiiskii qaybtiisa u dambaysan nabigu wuxuu yiri faman lam yastad'if fa bi qalbihi qofka aan waxa weeyaan karayn labadii hore midnaba gacan waxba kaga qaban karo علمي يا أقوى يا دليل ودول صار أو كعدة يفعل حمد الشيء سلية معاصد أصلا ما هيو لكن محو قرنا يا إن حمان تهيو قرنا يا هذو دورها بمقلة مقل علم الدجود باكوهي كام حلو جبهه قلبي يلو كنوع هذا ارتقف حمان سمينيا مثلا واحد ارتقف لقاها وجران هاسو أو واحد ماذا حلوه يا قرآن شيطان بعد لقى وجران ما هدي قفك وشيء كرتو وشيء أسلوب في عنه وشيء ولي بس سيجارة ومدة هذا كده حصاري وضدك كوهر فضحين هذه حتى ضدك ده حوض هنا إدب يكجتو يا يعني وحويا الله وحده ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يعني شدك إلهي أقويا ضدك الصحة ماذا له ويوانا في عن هذا ترى قف كيف بالكور بروحان هي سادة السنة wuxuu qoray maxaa kaaga heestada maday xisaabinay maday cadaabay maday janaynay qornay Soomaa laakiin hada tira walaalkayga muslimka ah kelmad ma ku sheegi kara kulli kuma diidayo haabo qornaya walaal heestu waa dambi dabeetana daliilkiina raaci iyo wixii diintu ka qabtay ilaa hada raay ma meesha waa diinna waa waxa asal waa ad-daliil ay asal waa daliilkaas oo sugan waayahay haddaba nabigu muxuu sheegay ad'afu al-iimaan iimaanka u liita qofka aan xumaantii gacanta ku qabanayn ee dadkii awood u lahaan hayn in cilmigiina aan garanayn oo cilmi dadkii soo daliishaneen oo xumaantii u sheegeen ya yani
daliilka diidaya ee diinta ee sharciga kana xumaantay samaynayaan dee qofkaasi markaa sii rogno iimaankiisi waxa weeyaan wuxuu noqday wax aad u liita inkastoo nabigu wadaalika adcafu liimaan ka u liita waaba ka qalbiga ka nacaya bal haddaad ka waran gacantiina ka qabanin waxba ka qabanayn afkii ka qabanin oo ka sheegayn qalbigii ka nacayn dadkii muslimiinta ah waxa weeyaan agtada macasi ku samaynayaan oo aad iska dhaafaysa ama iska daawanaysid ka waran markaa dee waxaad u baahantay markaa inaad iimaankaaga soo qoweyso inaad soo qoweyso waxa axaadiista ka mid ahayd in waxa weeye dad marka xabaasha ay ku jiraan ee malaa'igtu ay weydiiyaan man rabbuk waman nabiyuk wamaa diinuk inay odhanayaan dadkan ka maqmaqlaya dadkan wax ka maqmaqlaya ya haddaba iimaanku sidaynu soo sheegnay waana nuqsama waana kordhaa suuratu alanfaal allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay sifaadka muuminiinta aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون بإليه أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ومؤمنون وحكسيه الرئيسي الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فما إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يعني وحويان هل كان محا إلهي كشيء الزيادة وحيالها وكل زيادة يمكن محا كاملة قرآن كإلهي إنا دقيستو قرآن كإلهي إنا دقيستو هلا يابي وقول كإلهي وهو أصدق القائلين إلهي وحيري وكوة مرك آيات كيغ مؤمنينتو وكوة مرك آيات كيغ آيات إلهي مرك لقو أخريو دوشو هذا إيمان وحيوسي أيو سياديان إيمان هي أيو سياديان ومؤمنين تويا منافقين تميا صورة التوبة آخر كذا كآخر آخر كذا بقى قدام بيا كآخر يعني وحوي ومزيادين يا واحد لأن قلب جيبا وسخيسا قلب جيبا بكاء قلب بكنا قرآنكم يعني وحويان ما فهمي قلب بكاء قلبي النظيف تبع قرآنكم دعية وفهمي هذا بقى قف ولو باسكودي إيمانكاga inaad ziyaadiso iimaankaaga markaas too dareento xumaanta inaad ka damqarin iimaankaaga hoos u dhacay markaas soo dareento inaad ka ciriiriyoomayso markaad xumaan aragto iimaankaaga waa xoog marka ma sha Allah iimaankaaga waa xoog hadaa arto xumaanta ka yaqsanay balka waran laba qof baa waxa laga yaabaa qof markuu sawir qaawin kaga soo boodo internetka inuu markiiba dhaafo oo si eegin qofna waxa laga yaabaa afraadka saacad iska daawadaaba maxaa u dhaxeeya labada qof al-iimaan إيمانك أيها وحوي ودحيا ومن حب إيمانك سيهاي من إيمانك أسباب ضعيفة. مركا علماء الإسلام يعني وحوي عقيدة أهل السنة والجماعة وحويان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. إيمانك وحكو زيادة طاعات إلهي طاعات وحلا وحي إلهي كفري وأضت مضد إلهية شامل كثيقات يا نبي صلى الله عليه وسلم. معاصينا وحلا راه wax kasta oo sharcigu aanu ogolayn oo uu diiday oo adigu naad gasho oo qofkii galo midaan been buu sheegaya uu sinaysanaya tuug weeyo dadku dhacaya ribadu cunaya waxa way beentu sheegaya iibkiisa been buu ay ku daraya xoolaha guntu iska cunaya xila soo macaasi al macaasi iimaanku marka hoos buu dhacaya taxad ku tagay balka waran laba nin baa masaajidka soo galaya mid wuxuu u soo galay inuu salaadii ilaahay ku soo tukado واجبكي إلهي فري أو أبورتي إنه صوق لما يستفتو أيوه صوق على مساجد ميت كلا وحول صوق علي إنه لما كباط مساجد كده حيث كسوقات المساجد ليس بل كورنا والله نحاول حيا لما ضو مساجد كسوق علي لكن محاك لدون قصدي جاي وجدد محايا كجارسي من إيمان كيسا حوجة عبادة يبور ربعين وقتو إلهي سبحانه وتعالى وأبورته الله محول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن يئس وما أمرا إلي أنا يعبدان مويا إن أنا وحيدان كلي يعبدان وياه وايه كان محو ودا marka masaajidka wuxuu soo galay si uu kabo uga soo qaato maxaa kalifay inuu kabo qof muslim leeyahay oo salaad ku jira oo hadda wax kale ku baxaysan inuu kabiisa qaato la baxo loo kala baxo iimaankii baa ka nusqaamay nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam hadith la yazni zani
حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ولا يعني وحويا ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يعني وحويا تو يعني قفك زنيسنا يا مسنيستو سو مؤمنا سنكم ودعو قفك شاربك خمرك عبا ما عبو يا سو ايمانكيسو uu joogo uu qawi yahay qofka tuugayna waxa ma xalo si uu iimaankiisu markaa waxay yani iimaankiisi baan kaamil ahayn weeyaan oo yani waxa weeyaan iimaanki markuu ka daciifo waxaad noqonaysaa markaa wax iska daciifaad noqonaysaa shaydaanka kugu ciyaaraya markaa kolba dhinac ku tuuray ma ribada cumbu koonay waa caadi kaba masaajidka ka soo qaad waa caadi maxaa ka galay waxbuu ku akhriyaya iyaga halkaasay maxay heeday riba iibsanayaan ma lacag ba haysan waxaad ku qadayso ma haysid wax godoona baa ku lahayd soo ilaahay sheegay uu qurxiya qofka xumaanta Soomaa ya dadka xumaanta uu qurxiya qof baa lagu oranaya marka wax weeyaan yani waxa weeyaan xalaasha wuxuu uu adkaynaya shuruudaha dhigaya xumaantana uu sahlaya maxaa dhacay shaydaan baa tan u macaaniyay tan uu fool xumaynaya ilaahay naga badbaadiyo marka iimaanku muxuu ku ziyaadaa iimaanku wuxuu ku ziyaadayaa inaad waxa weeyaan daacadka ilaahay badiso daacadku waxa weeyaan amalkii wanaagsanaa ilaahay ku faray inaad waxa weeyaan la timaado muxuu ku xumaanaya muxuu iimaanku ku daciifaya oo ku naaqusaya macaasida hadaa arto qof macaasidu markasta oo fududahay iimaankiisa baa aad daciifay qofka muxuu baahay qofkaasi iimaankiisa inuu kor soo kiciyo qof baad arkaysaa waxa weeyaan qof baahan oo dee taagan oo muslima ayuu arkaya gaariga inta xoog soo riyaabuu sigeynda kaga tuuraya isagoo ka diiqadoonaya qofka oo dee taagan maxaa kalifay qofkan ilaahay soo ma dhirkin karo soo ilaahay wax ma siin karo maxaad ugu cadhoonaysaa marka iimaankiiba ayaa ka nusqaasan qofkan hadduu iimaankiisu qawi yahay sadaqad buu la bixira jaanis weeyaan waa jaanis qofkaa boodada taagan waxaa laga yaabaa qofkaas inuu qani ahaan jiray guri hantiya lahaa shaqo fiican haystay waddankiisii musiibo ka dhacday gantaalo la dhacay ehelkiisii qaar dhinteen soo firdhaday dadka afkoodii garanay laamiga taagan yahay wuxuu garanayaa bis yaa muslim ayuu garanaya yaa marka shalay baa waxa anigoo meel maraya suuqa Hargeysa ayaa waxa waqti arkay qof gaari jiir gaari markaa ana soconaya marka qofka runtii wadadu aad ugu dhawaay meesha gaariga qof dumar ahayd ilmana way haysatay halkan ku haysatay aad buu soo gaariga u jiro waan nahay markay ku dhawaado waxaan arkay waa gabadh maxay aan u maleeyay Suuriyaan tahay oo ilmo haysata ya marka ninkaas ninka waxa weeyaan lacag badan baa loo soo ururiyay kulli isaga Soomaa de uu karay intuu gaariga waxa weey qaboojiyo inuu u dhiibo dhowrku ama 10 kun bad ha uga dhigo ama uga yaray ama uga badiye inuu wuxuu dhiibo uu karay Soomaa laakiin waa ka canaqsi maxay wadada isu taagtay wuxuu isleeyay mooyee gaarigu uu mari gaarigu gaari dheer buu ahaa bas dheer oo daba dheer buu waan nahay marka dadana waan la hadlay marka ya lacag yarna waan siiyay خطير السيارة خطيرة حاجة نقبل بنقول لامي حاجة نقبل لا حول ولا قوة إلا حاجة اللي فيا إيمانكم هدو كانوا نقصان مركا وحويان خطير جدا يعني واحد لقى يا با محاك صوبيا إنه قفك الصلاة دي بتيجو أذان كيو بحي يرد مقوى محاك يعني أذان كي أكتي سلقة دامية صلاة دي ولا هوجية محاك يعني إنه دم مقوى وقفنا الصلاة دنوسو إيمانك السبا نقصان كجرتا نقصان باقي الشيء إيمانك السبا ضعيف نقضي مركا سوقفك بلا أود نقضي imika waxa dhacday maantadan masaajidkan ku tukanay jimcaha gaari baa laga furfurtay intii salaad lagu jiray ayaan min tuug yimaadeen gaari ay furteen afka hore gaariga magaciisa ma kala qaan afka hore gaariga ay marka alaab qaali ka furtay marka weydii waxay ku yiraahdeen $100 iyo siyaada la siiyo inta ay furteen markii salaam alaykum imaamku laha salaam alaykum mari ayaguna gaariga ku cadaadinayeen laabta oo u gali laaydo waxa weeyaan markaas xafareen gaariga yirhiidin kawar hada waa labada ragcadood jimcaha waa tii ilaahay subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladhina aamanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharu al-bay' sameeyeen ilaahay xuskiisa marka adaanku dadka muuminiinta oo markii loo adimo salaada jimcaha u soo degdega xuska ilaahay kana taga iibka kuwii xalaasha iibka xalaasha ka shaqeynay baa ka kaalay
si aad waxa salaad aad u xaadirtaan jimcaha uga qayb gashaan iyaguna waxa weeyaan maxay hayday xaaran iyo waxa salaadii xilligii salaada lagu jiray xadis ay ku jireen ka war marka maxaa dareemaysaa iimaankii baa nuqsaan gashay iimaankii ayaa nuqsaan gashay ilaahay subxaanahu wa ta'aala inasugo hadda waxaaba soo baxay dad yani aan aaminsanayn bay ilaahay iyo xisaab iyo aakhira iyo waxan baan aaminsanayn oo xataa mararka qaarkood anigu aan isheeda ku arkay waxyaalaha ay soo dhigeen internetka ma groupiska qaar ka mid ah ku arkay dadkaana mulxidiin baa la yidhahdaa ha laga foojignaado waxa weeyaan waa dad waxa weeyaan iyagu ilaahay bay inkirayaan jiritaanka ilaahay baa inkirayaan inuu ilaahay jiro inkirayaan iska daa markaa salaad iyo wax la iska rabo iyo wax la qabto iyo xaaraan iyo xalaal iyo waxaas iska dhaaf way dhamaadeen waxaas laakiin jiritaankii allah ha laga foojignaado meelahaas wax soo dhigeen dacaayadii soo dhigaan aayado quraan ay soo qaataan oo yiraahdaan aayadaas waa saaysaas aqliga ma gelayso diintuna wax aqli lagu qiyaaso ma aha wax aqli lagu qiyaaso maba ahaba waayo de quraanku wuxuu ka waramaya ma aha wax yar inagu naqaanay binaadamka daciifka ah ay taalka daran waxyaalaha qabqabtay iyo waxyaalaha shaqooyinka yaryar ma aha waxa laga waramayo waxa weeyaan rabbiga subxaanahu wa ta'aala khaaliqa samaawaadka inta laga abuuray dhulka inta laga abuuray badaha buuraha abuuray yani waxa weeyaan haddaad bal maskaxdaada yar aad ka qiyaas qaatana see loo samayn karaa si waxaas u dhici karaa dad tira ka waran nin baa waxa jirtay qiso quraanka ku jirta suuratul baqara wuxuu soo maray tuulo burburtan oo isku weydunsan nacud billah sharjim aw kalladhi marra ala qaryatin ayda sakor mas aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi allah ba'da mawtiha fa amatahu allah 100 'am thumma ba'atha qala kam labith qala kam labith qala labith yawman aw ba'da yawm qala bal labith 100 'am fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نجسها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير نكا نوحو لياوي مقالة وذا دنتي واسكو يعني أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أن قال أن أخي هذه له بعد موت مقالة سيئة وصل نورانيا dadkii joogay see u soo noolaanayaan magaalada gebigeedii baabaaday isku weydintay ayuu yidhi saasuu ka fikiray markaasaa ilaahay isaga dil ku xukumay 100 sano ayuu meydhaw banaanka yaallay 100 sano ayuu meydhaw banaanka yaallay markaasaa la soo nooleeyay markaasaa la yidhi ilaahay subxaanahu kam labitha markaasaa la intee leeg baad halkan joogtay yawman aw bacda yawm qaal labitha yawman aw bacda yawm maalin ama gelin ayaan joogay buu yidhi halkan qaala bal labitha 100 'am 100 sanaad joogtay baa leeyahay marka ninkan waxa haystay cunto uu cunayay iyo dameer watay ayaa meesha joogay markii meesha nafta laga qaaday markaas ay leeyahay fanzur ila da'amika wa sharabik lam yatasanna wanzur ila himarik yani cuntada maxay naqaanay sida caadiga cuntadu inay isbedesho hadii muddo meel taalo dabeetana urto dawaynaga cuntooyinka soo haro soo lama daadiyo meelaha kama soo urto marka dambe sidaas aad yani waxa adduunyada dabiicadeedu hay laakiin maxaa ilaahi awoodiisa cuntadiis ma bedelinba 100 sano bariiskii 100 sano ka hor la kariyaa kala dhigay sidii buu carfay oo gooyay dabeerkii uu watayna intuu baqtiyu dhintay ayaa la fameeshisiya la fihiisi wali yaal isagana markaas aad betri ilaahay awoodiis kaasay cuntadaadii ismay bedel bal dabeerkii baadana la fihi ba ayaa soo qabsaday jilibkii lugtii boodii misigtii soo qabsaday markaas ilaahay jidhkiina markaas la gali isagoo arkay ya dabeerkii oo taagan boor oo sidiisii dhamaystiran markii uu cadaatay awoodda ilaahay wuxuu yiri a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir waan ogaaday yani waxa weeyaan waan ogahay imika hadda inuu ilaahay wax walba karo marka ilaahay wax walba waa kara subhanahu wa ta'ala marka waxa weeyaan inuu qofku aqligiisa yarinta loo sheekayo gaal iyo waxa dhaamin ay u sheekayaan inuu dabeetana dib soo kala fireeyo isagoo muslim ah oo aabihi muslim ah oo muslim ah intaas oo yani ka aw aha
وما أنت الريافة صبحه dangerous ويان خطر عظيم ويان بركا waxa weeyaan ha laga foojignaado yaana la hadlay yaan comment loo qorin waxba yaan loo qorin yani waxa weeyaan waxaan ka wadaa yani dood iyo waxa soo kale ha la sameeynin way aqoonteedii mari adiga baa laga yaabaa hadhow ka shakiyo diintaada ad ka shakido hadaad waxa aragto nacuudu billahi min hada ilaahi baan ka magan galay ilaahi ayaan ka magan galay waxaas waayo nabigu waxyaalo ilaahi ka magan gali jiray maxaa kamid ah كفري يا فقري كفري يا فقري قال نمو يا فقري باهي قفك باهي أي كل عادي بني آدم وبهذا إلهي نو باهي وهو آدم حموية وضدك هرتو ذكرنا يوم باهنا قال لي ما أنا وحويا وكثرنته إلهي محكو الشقي يعني وحويا ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها يعني أو من كان ميت قف ميدها أو بختها فأحيناه نور قف قال كأ والسيد ميت أوكل هذا صعد وحعنا وحعب قف أن إيمان قلبي يسكتشين ما نورا نولش يسمعها حقيقة ما يا نبينا محوري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت قفك إلهي كحرا إلهي رميسا إلهي حصا يكأن إلهي بس هذا القادم قرنينا حسوسنا وحوي حسنهي مثل الحي والميت واسدا نولي يوم نولي مثل الحي والميت مركا قفك إلهي جحوديا إلهي كدوديا بجرتان كيسا كاسوا محي الميت وحويا ودغدغاغا يوحو عنعنيا ما اسمر مريا لكن نولشي رسمي ahayd ee waxa weeyaan u sheegaysay wuxuu halkan u joogo waxa loo keenay waxa ka dambeeya waxa weeyaan way ka maqan xaraan ma yaqaan xalaal ma yaqaan aakhiro ma yaqaan ilaahi ma yaqaan ka war soo wax laga fogaado ma dangerous weeyaan marka hal iska ilaaliyo iimaankeenana aynu la socono markastoo dareentid inaad xumaanta kula sahlan tahay ogow marka iimaankaaga nuqsaan baa gashay markastoo dareentid ximaanta diidaysid nacaysid ma sha Allah alxamdulillah ilaahay ka sii baray si inuu ku siiyay iimaanka oo iimaankaaga halka ka sii xoogo ka sii quwad bato maxaa yeelay waxa la tilmaamay yani dadkii wanaagsanaa quruntii wanaagsanaa iyo saxaabadii nabigu inay u arki jireen dambiga maxay sida buur ku soo dumaysa hadii buur kugu soo dumaysa ka war adarkiisa xagga sare ka xigto way kugu soo dhacayso miyaad farx miyaad soo dhigi buurta miyaad iska sugunta kugu dhacayso soo waxaad isku daysan carrato buurta ka fogaato sana kugu dhicin dambiga saasoo kale warki jireen munaafiq iyo qofka liitana wuxuu arkaa bali tuqsisan ka iskaga taago sidaas kay ayuu arkaa bali fudayd yani wax yar oo fudud buu arkaa dambiga ilaahay subhanahu wa ta'ala qulubta iimaanka inoo qawiyo ilaahay diinta inagu sugo ducooyinka lagu ducayso waxa kamid ah اللهم يا مصرف القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.